ugu yaraan 6 bil ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxaa si weyn uga jira dhac xoog leh oo ay la kulmayaan dadka ka badan 3 milyan ee ku nool gobolka Banaadir. dhaca Muqdisho ayaa gaareen maalintii 6 saac wadooyinka loo istaago ardayda ka soo baxay iskuulada iyo jaamacadaha. sidoo kale waxaa loo dhacaa goobaha ganacsiga qaar ee xaafadaha gobolka Banaadir. dadka ku nool gobolka Banaadir ayaa sheegay in habeenii maalin si isku mid ah oo cabsi la'aan loo baarto qofkii laga waayo waxyaabo laga qaato ayaa waqtiyada qaar la kulma jirdil dhaawac ama toogasho toos ah. kooxaha dhaca geysta ayaa wata dareeska ciidamada militariga iyo booliiska halka qaarkoodna aysan wadan dharka ciidamada. sidoo kale kooxaha dhaca geysta ayaa wata bastoolado iyo qoryaha AK47. sidoo kale waxaa la sheegay inay wataan mooto bajaaj iyo mootada laba lugaaleyda. inta ugu badan kooxaha dhaca geysta ayaa soo qaata face mask afka lagu xirto ama waxay soo duubtaan wajiga iyo afka. degmooyinka qaar ee Muqdisho waxaa lagu dilay dhalinyaro badan oo la damacsanaa in laga qaato moobeelo iyo agabyo kale ay wateen kuwaas oo la murmo kooxii dhaca u geysanayay. degmooyinka ugu daran ee dhaca moobeelada iyo agabyada kale loogu geysto dadka ku nool gobolka Banaadir waxaa ka mid ah Dharkinley, Wadajir, Kaxda, Dayniile, Hodan, Howlwadaag, Wardhigley, Yaaqshiid, Hiliwaa, Kaaraan iyo degmada Waabari. qaar ka mid ah dadka ku nool degmooyinka aan kor ku soo sheegnay ayaa sheegay inay ka qoosteen ciidamada amniga kadib markay qaylo dhaan badan ay u direen oo aan laga soo jawaabin. dadkan waxay kala garan laayihiin in magaalada Muqdisho gaaraan xaafadaha ay degan yihiin ay ka guuraan sababo amni xumo awgeed iyo inay ku sii sugnaadaan inta ay fursad ugu soo helayso dawladda Soomaaliya isla markaana ay u dulqaataan dhibaatooyinka ay wajahayaan maadaama aysan haysan meel kale oo ay maciin bidaan. madaxda dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ayaa ku mashquulsan doorashada Soomaaliya oo muddo dheer wajahaysa isbaarooyin badan oo ay kala kulmayso dhinacyada hoggaanka siyaasadda Soomaaliya. baraha bulshada ee internetka ayaa 48 saac ee la soo dhaafay waxaa ka bilowday olole ka dhan ah dhaca Muqdisho iyo aamusnaanta dawladda iyo hay'adaha ammaanka. Janaal Zaki Xuseen Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay jawaab degdeg ah ka bixin doonaan cabashada dadweynaha ee dhaca iyo baarashada ka jira magaalada Muqdisho. ciidanka amniga ee degmooyinka qaar ayaa sheegay inay ku guuleysteen soo qabashada kooxaha burcada oo dhax ka geysanaya degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood. maamulka degmada Yaaqshiid ayaa 2 jeer soo bandhigay kooxaha hubaysan oo dhac la sheegay in lagu soo qabtay iyagoo ka geysanaya xaafado ka mid ah degmadaasi. dadka ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa aaminsan in kooxaha qaar ee dhaca geysta ay yihiin kuwa ka tirsan ciidamada qaranka inkastoo aysan jirin cid warkaasi xaqiijin karta. dawladda Soomaaliya weli lama oga goorta ay u soo jeesan doonto dadka ku nool gobolka Banaadir ee wajahaya amni darro xoog leh.